السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan soo codnaa cashkana advance fraction word problems. Taan xulay ana gabadha ana dhaha devotes a quarter of her salary to her home. Ana gabadha lahaa devotes waxay u qoondaysay a quarter of her salary mushaharkeeda rubc kamida marka yani afar meel loo qiimaal kamida to her home gurigeeda ku bixisay ama u qoondaysay inay dee ugu iibiso wax noocaas. The 2 out of 5 or rent represented the expenses. يعني shan meelood laba meelood ka mid ah kiradii iyo ay ku qarash gashay isagana. Haddaba she earns waxay heshaa France 5,700 per month bishii yani waxay heshaa 5,700 oo lacagta French-ka ah. Haddaba what are the monthly charges for her housing? waa maxay billaha ay gurigeedu qaato yani bishii intee bixisaa wax yani charge karaysaa haday guriga tahay waxay ku bixinayso rubuc haday tahay inta kirada ku baxaysa way marka quota waxa weeye inta quota sida loo qoro quota rubuc waa hal meelood afar meelood meel kamid ah guriga adeegii tahay waxa tahay laba meelood kamid ah waxa weeyaan waa kiradeed marka intaasna qaata marka mid kasta gaar uga shaqeynaa marka xana wana laba baan uga shaqeyn karnaa inta isu geeyno waa inta inta ka dhaxso ku dhufano aan ka soo dhax saarno yana mid kasta gaar u saarno waa iska mid ah marka dad mid kasta gaar uga shaqeynaa yani 5,700 oo French afar meelood meel kamid waa imisa oo ay ku bixinayso guriga markaan soo qaybino 5,700 loo qaybiyo afar meelood intaas waa 450 lacagta French-ka marka intaas wax ku bixisa kirada waxaan jeedaa guriga hawshiisa shan meelood kamidana lacagtan bisha qaadatana waxay ku bixisa kirada marka 5,700 loo qaybiyo shan meelood intaasna waxay ku bixisaa kirada maaragtay marka la isu geeyo maxay noqonaysaa marka yani bisha intay charge karaysaa laba la isu geeyo 2,720 loo geeyay 1450 3,770 bay spend karaysaa waayahay markaasi waxaan buu la fahmay insha Allah waana hubin kartaa iska fudud hubinteedu dhamaanta khayr wada rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.